Bismillah, halkan waxaan soo galay laba arrimood oon gadaal rabo inaan kaga hadlo, laakiin intaa ka hor qiso yar oo qosol badan inaan ka hormarsiyaan jeclaystay oo lagu cimro qaadanayo in aan la wadaagin aan jeclaystay. Marka sheekh bay ku dhacday Sacuudiga kamid ah culimada waaweyn, Sheekh Sacad la yiraahdo. Marka sheekhan wuxuu yiri dadka lacagta hagbadaha ururiyaan ama ayuutada saad u fahmaysid oo u garanaysid. Marka maalin baan lacagtii dadkii ka soo ururiyo dhahay masaajidkan u baxay gaarigan qaatay lacagtiina waa watay. Markii aan gaariga ka baxay lacagtii gaarigan kaga dhex tago yiri oo hilmaamay oo markaa qofkii soo maro oo dee arka u qaadanaya sheekhi masaajidkii waan galay yiri. Masaajidkii markii uu galay imaamkii muadinkii baa dhahay sheekhow adina tuji, yani culimadii waaweynaa maadaama tahay ina geli laba kelmadana ina dheh, yani salaada marka laga baxo. waayahay u dhahay labaas sheekhi. Allahu akbar markuu yiri oo shaydaankii ku soo riday maskaxdiisa shandadiina yani shaydaanku inuu cajiib yahay oo dadka yani waswaasinayo oo yani khushuucdii u diiday oo dee adduunkii oo dhan kugu soo rogayo. Marka sheekhi wuxuu yiri inuu leed igu dhago kala camal baan u maleeyay electric. sheekhi marka waa salaadii waan iska wato yiri bilaa khushuuc waan ka walwalsanaa. waxaan yiri haddii aan dee ilaahay igu talagalay halkeedaasaan ugu tegay, haddii kalena dee ilaahay baan tala saaran. sheekhi salaadii markii uu ka baxay kacduu siri oo dee lacagtii eegis yiri muadinkiiba waa mikrofonkii uu ku soo dhaweeyay. sheekhow laba kelmadoodna dheh. sheekhow tafadal maanta waaba bifadlillah waadna soo gaadhay. sheekhi wuxuu dhahay sheekhow waan degdegayaa iga qale maayi laba kelmadoodna dheh. sheekhi markaa dee wuxuu ka hadlo mawduucu ka hadlu garan waayay maskaxdiisii leen lacagtaa dadka bini'aadanka ka soo ururiyo ku maqan tahay. sheekhi markaa wuxuu dhahay aayad bay soo dhacday dhahay in dee masaajidka hal qof uga bixin, haddii dee masaajidka laga baxo gaarigii afaaf ku yaala qofkii arka u qaadanaya lacagtii. marka sheekhana wuxuu soo qaatay aayadda ah ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. aayadda markii uu dhahay cid ka baxday masaajidkii waa la waayay oo cid walba dee way baqad, yani wacdigii dhageysatay. marka sheekhay markii isagu wacdigii wada ayuu arkay nin Bangladesh oo luqadda aanay fahmayn oo albaab ka sii baxay. markaasuu dhahay yaa rajul soo noqo sheekhow dadka ha horeyn oo shaydaan ha ku noqon. يعني شيخي لين ميل كلا وكفكريا مركا شيخي ساد دمي على كل حال dadkii uu ka horeeyay uu ka horbaxay gaarigii bartii buu tagay lacagtii. marka bifadlillah ilaahay uu soo noqday laba ragcadood tukaday oo shukriya. marka halka waxa ka fahmaynaa shaydaanka yani inuu dadka waswaasiyo oo adduunka oo dhan buu kugu soo ridaya marka salaada bilowdo wixii aad ilowsanado dhan buu ku xasuusinaya. marka fahan yani iska naar arrinta rabay aan soo galo waa laba arrimood oo ah bulshada Soomaalida ay ku badan tahay. midda koowaad waxa weeye fatuha wax la yiraahdo oo ah yani qof kasta waxa ku badan tahay Soomaalideena, yani bulshadeena wax waan aqaanaa, yani wax kasta waan aqaanaa, kan waan garanayaa taasa ku badan. marka yani juxo qasayr bay idiga sheekeen. juxo ayaa waxa la yiri dameer buu rabay inuu soo iibsado, naagtiisii buu ku dhahay dameer baan soo iibsanayaa. markaasuu ku tiri war insha Allah dheh. markaasuu yiri insha Allah xagee ka dhayay lacagtii jeebkaygu jirtaa dameerkiina wuu iga horeeya. waayahay buu ku tiri uu baxay. markii meeshiis yani lagu iibsanayay dameerada markuu tagay lacagtii buu waayay. iska soo noqday wuxuu yimid jeeb isagoo qacanta kula jira qacana laalaadinaya. naagtii waa ku tiri naagtiisii juxo dameerkii. markaasuu yiri